السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كسو دوادا وانيغا أستاذ مهاني waxaan idin la wadaagi doonaa dhacdo marka maalmahaniba ka socotay baraha bulshada hadduu alle ka raali noqdo dhacdadaasina waxay tahay dhacdo ku saabsan Khalid Miqdaad. saacadihii la soo dhaafay sheekooyin badan ayaa ku faafay geerida Khalid Miqdaad oo ah madaxa kanaalka haadka jannada kadib markii wiilashiisa la daabacay iyadoo loo marayo bogooda shakhsiyadeed ee ku yaala boga caanka ah ee Instagram-ka. sawiro ay ku soo ururiyeen aabe intuu ku jiray daryeelka degdega ah ee isbitaalka. qof walbana wuxuu isku dayay inuu ogaado xaqiiqda ku saabsan geerida Khalid Miqdaad. haddaba waxaan halkaani kugu soo gudbin doonaa Khalid Miqdaad miyuu geeriyooday mise weli waa uu nool yahay. runta ku saabsan geerida Khalid Miqdaad kadib markii uu raafiyay warar badan oo ku saabsan dhimashadiisa. Axmed Miqdaad wuxuu sharaxaad ka bixiyay runta geerida Khalid Miqdaad. haddaba Axmed Miqdaad waa walaalkii Khalid Miqdaad. website-ka Kolob ee dalka Urdun maadaama uu xaqiijiyay in dhammaan wixii laga yidhi geeridiisa ay yihiin warar xan ah isagoo sharxaya inuu weli la daaweynayo. haddaba Axmed Miqdaad ayaa waxa uu ku leeyahay walaalkiisa Khalid Miqdaad noqo eebaha caalamka walaalkii aan jeclahay Abu al-Waliid Khalid Miqdaad weli waa la daaweynayaa si tartiib ahna wuu u soo fiicnaanayaa xanta iyo wararka markaa been abuurka ahi run ma ahan ayuu markaa yidhi Axmed Miqdaad oo markaa ka hadlayay xaaladda walaalkiisa Khalid Miqdaad iyo ka hor intaan la faafin ku saabsanka geerida Khalid Miqdaad al-mu'tasim billah. Miqdaad oo loo yaqaano Asumi wuxuu soo dhigay Instagram-ka sawir uu aabihiisa kula soo qaaday isbitaalka wuxuuna ku qoray isagoo faalo ka bixinaya ilaahow eebaha dadka cudurka ku rida waxaan weydiisanayaa ilaaha qaadirka ah eebaha carshiga weyn inuu ku bogsiiyo oo ku siiyo caafimaad iyo fayow aabahay gacaliyahayga ramadaankii ugu horeeyay ee aan lahayn. Khalid Miqdaad Asumi wuxuu ku xaqiijiyay fiideo uu soo dhigay bogiisa shakhsiyeed ee qoyska uu soo maro 1 bisha Ramadaan aabahooda Khalid Miqdaad waxayna faalo ka bixiyeen iyagoo leh baaba wuxuu soo galay 2 maalmood ka hor baaba uu sii daalayaa waa uuna hadda jifaa daryeel xoog leh ayuu markaa u baahnaan karaa laakiin xaaladiisu waa mid degan oo arrimihiisa ay yihiin kuwa dhammaystiran oo degan oo ku saabsan habka neefsashada iyo haddii eeba idmo waxaa mar dhow laga yaabaa in markaa uu ka soo tooso sariirta isbitaalka. dhakhaatiirta ayaa waxay yiraahdeen khatar bay ku jiraan sababada gabi ahaanba way burbureen laakiin haddii eeba idmo maalmaha soo socda daryeel iyo qole caadi ah markaa loo gudbin doonaa. haddaba waa kuma Khalid Miqdaad. Khalid Miqdaad waa agaasimaha iyo asaasaha wadiiqooyinka caanka ah ee loo yaqaan shimbiraha jannada ee caruurta Diyurul Janna. wuxuuna ku dhashay Khalid Miqdaad dalka Kuwait wuxuuna haystaa dhalashada Urdun karaalada Jannatul Jannana ama loo yaqaano Diyurul Janna waxaa la aasaasay 2008 wuxuuna leeyahay Khalid Miqdaad 6 caruur Waliid al-Mu'tasim billah Jana Iyad Jad iyo sidoo kale intaayaan ku koobaynaa warbixintii aan laga hadlayay Khalid Miqdaad. haddaba waxaa halkaani ku cad in Khalid Miqdaad uu weli nool yahay. Allah subhanahu wa ta'ala caafimaad taama ha siiyo dhammaan muslimiinta inta xanuunsan. waxaan idin leeyahay Ramadaan mubaarak Ramadaan kariim kullu caam wa antum bil khayr. wa aniga walaalkiina Ustaad Muhani billahi tawfiiq. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.